بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، waxaan soo wadnay halgankii dheeraa ee uu galay ninkii la oran jiray Imaam Axmed Gurey. Inkastoo wiiga duruufo jira daraadooda uu inaga kala go'ay, laakiin meeshii aan ka bilaabanaa. Kitaabka waxaynu maraynay safxada 51 si aan idin xasuusiyo xaaladda aan ku jiro waxay ahayd Imaam Axmed Gurey raxmatullaahi calayhi markuu soo dhameeyay dagaaladii gudaha qabaaisha Soomaalida iyo dadka muslimiinta bariga Afrika uu ku heshiisinayay, wuxuu u gudbay inuu laba dagaal la galo oo raacda reeb ahaa oo gaalada intay soo duuleen isagu uu ka daba tegay, kadibna wuxuu bilaabay inuu ayagii duulaamo ku qaado. waxaynu soo dhaafnay laba duulaan oo uu ku qaaday magaalada dhulka la yiraahdo Dawaara iyo duulaan uu ku qaaday dhulka la yiraahdo Aafaad. labada duulaan ba dagaalo culculisi kama aysan dhicin. waxaa ku xigtay duulaankii saddexaad oo ay kii aynu ku dhex jiray ahaa oo uu ku qaaday magaaladii la oran jiray Baadiqa. waxaynu soo tilmaanay in magaalooyinka Amxaarada xilliga lagula dagaalamayay ay afar u waaweynaayeen. magaalada Baadiqa oo hadda dagaalka weyn uu ka dhici doono, iyo magaalada la yiraahdo Baytul Amxara oo boqortooyada xarunteeda ahayd, iyo magaalada la yiraahdo Camba oo boqortooyada ciyaalkoodu deganaan jireen, iyo magaalada Oksum oo Tigreegu ay madaxdoodu deganeed. marka waxaynu soo haynay ciidamadii Imaam Axmed Gurey isagoo afar qaybood u qaybiyay oo calamo u kala sameeyay oo afar nin u kala dhiibay, kadibna say usoo tukubayeen magaaladii Baadiqa qarkeeda yimi. waxaan kaloo soo dhaafnay magaalada Baadiqa inuu boqorkii xabashida markaa haystay uu yimi, kadibna uu ciidamadiisa ku wareejiyay nin la yiraahdo Cusmaan oo reer Sacdudiin ka soo jeeday nimankii har haysan jiray laakiin markaa gaal ahaado nimanka u shaqaynayay oo magaalada madax ka ahaa. wuxuuna kula ballamay inuu ciidamada muslimiinta markii ay ogaadeen inay magaalada Baadiqa fooda ku soo hayaan, wuxuu kula ballamay inuu yiri ha ka hortagin ilaa ay magaalada soo galaan si dadka ay xamaasadiisa u kiciyaan markay magaalada gubaan oo kaniisadaha dab qabadsiyaan oo idin laayaan si aynu hareeraha uga galno. isaguna uu u carray Baytul Amxara iyo xagga uu iska aaday. kadibna waxaan soo gaaray oo inoogu xigtay in hogaamiyeyaal badan oo badaariqadii Tigreega ah ay ka yimaadeen dhinaca Oksum, kadibna ay u yimaadeen ninkii Cusmaan ahaa ama Cusmaan al-Murtad markaa loo yaqaano. marka dambe wuu islaami doonaa, magaalada Camba la yiraahdo baa lagu digi doonaa isaga iyo Mataan ninkan qabiilada Geriga hogaamiyahooda ah. meesha waxaa ugu yimid niman badan oo hogaamiyeyaal iyo ciidan tiro badan oo Tigreeg ah. kadibna waxaa dhacday ciidankii muslimiinta intii ayna magaalada soo gelin ayaa nimankii iskhilaafeen. khilaafkii dhex maray wuxuu noqday Cismaanna wuxuu yidhi anigu amarkii boqorku isii baan raacaya, magaaladu ilaa ay nimanku soo galaan hala dagaalamin buu yidhi. qolada Tigreegna waxay yidhahdeen war annagu yeeli mayno taase, nimankan inta ayan magaalada soo gelin baan ka hortagin, halkaasaynu marin. marka wuxuu leeyahay khilaafkaas markuu dhacay ayaa ninkii ugu weynaa badaariqada ama hogaamiyeyaasha nimanka la yidhaahdo Tigreega ayaa wuxuu leeyahay faxiina idin qaama bidriiqu ljabaaru alcaniid washaydaanu almariid Huwaybal ninka la yidhaahdo. xilliga arrintu markii halkaa marasay ayaa bidriiqii madaxa adkaa ama shaydaankii muruxsanaha ahaa ee micigamaarka ahaa ee Huwaybal la oran jiray ayaa istaagay. warakiba farasahu, faraskiisii buu dulaalay. waa khilaafkaas markuu dhacay. falamaa rakiba markuu faraskii fuulay rakibu macahu badaariqatu tajara. Tigreega hogaamiyeyaashiisii diinta iyo hogaamiyeyaashiisii ciidamada. badaariqadu waxa weye waa wadaad diineed nasaaradu ay leedahay baa loo isticmaalaa, laakiin waa wadaad diineed haddana hogaamiye ciidana. giddigood fardahooday u baxeen. waxaa nimanka fardaha fuulay oo ninka garab galay waxaa ka mid ah bidriiqu Asiir wa bidriiqu Faqrasuus wa bidriiqu Waashu Cusmaan wa bidriiqu Aruun wa atbaacihim iyo raggii la socday. wuxuu yidhi wa kullu bidriiqin hogaamiye kastana taxtahu hoostiisa waxaa jiyuushun katiira, ciidamo aad u tiro badan baa yaa ka hoos shaqaynaya oo watay. yani weliba taliyo guuta gaarkiisa u socda buu ahaa. nimankaasi waa dhaqaaqeen. wasaaru waxay u socdeen naxwa baabi baladi lbaadiqa. iridii magaalada Baadiqa loo yiri ninkeed meeshii irideedu ay ahayd xaggeeda ayay wajeen. wa kaana waxa ahaa wiil bayna albaladi wa bayna almuslimiin, muslimiinta ciidankeedii iyo magaaladana waxaa u dhexeeyay nahrun kabiir, webi weyn baa dhexdooda ah oo markaa muslimiintu webigaas ayn soo dhaafin. webigaana waxa yidhi yusama waxaa lagu magacaabaa Samrama. webigaa magaciisa waxaa la oran jiray Samrama. fasaara alkafaratu ila nahri, nimankii gaalada ahaa oo Tigreega u badnaa webigii bay caasha saareen. wastaqaamuu hunaaka, halkaasay istaageen. wacabaw casaakirahum, ciidamadoodii bay kala habeeyeen. waalbasuu khuyuulahum warakibuuha, fardahoodii bay fuuleen. wax allaale wixii ay u xiri kareen oo sitaac iyo wixii dhagaha loo gelin jiray iyo indhaha lagaga xiri jiray way u wada xireen. waafraquu calayhim ciddatahum wa aalaatahum, waxay dusa iskaga shubeen wax allaale wixii diyaargarow iyo qalab ay haysteen, seefahoodii iyo warmahoodii iyo waxoodii o dhan bay u diyaargaroysteen ayagoo halkaa dagaal u diyaar weyn. wakhalluu nahra xaa'ilan bayna wa bayna almuslimiin, webigiina faraha ay ka qaadeen. webigii ma ay tallaabin, webiguna wuxuu udhexeeyaa webigii ayay faraha ka qaadeen isagoo udhexeeya iyaga iyo dadka muslimiinta ahaa. halkaa markii la marayay sheekhu wuxuu yidhi qaala almusanif gaaladii warkoodii wakaa nimankii Tigreega way iskhilaafeen iyo qoladii meesha joogtay oo Cismaan watay. Tigreegii muslimiinta bay caas saareen, muslimiinta ayagana webigii baa udhexeeya. dagaalka muslimiinta lagu jabin doonaa, laakiin dagaalka ugu weyn
lagu tilmaamay inuu yahay waqcada ugu weyneeda bariga Afrika ka dhacday baa ku xigi doona oo muslimiinta ay guulaysanayaan laakiin markan kabtooda cirka loo tuuri doono waxa ku dhaca ogow imaamku wuxuu yidhi muslimiintii buu noqday marka waataynu sheegnay kitaabku marna muslimiintu soo qaadaya waxay tallaabo qaadeen marna gaaladu soo qaaday saasuu ku wadaa wuxuu yidhi wa ama ma kana min amri lmuslimiin hawshii muslimiinta ama amarkii muslimiinta miyaa fa inahu ayagu lamaa qarabuu min albalad magaalada markay usoo dhawaadeen wanadaru lkafarata wajuyuushahum oo ay arkeen gaaladii iyo ciidamadoodii waqad hayaw lilxarbi walqitaal iyagoo u diyaar garoobay oo ay arkeen gaaladii oo u diyaar garoobay dagaal iyo dirir faqaala xiinaidin imaamu axmed licaskarihi imaamu axmed ciidankii uu hogaaminayay wuxuu ku yidhi irkabuu khuyuulakum fardihiina fuula walaa tastacjilu lqitaal dagaalkan ha ku degdeginina wanduruu makaanan meel eegta yasluxu lilxarbi walitijaali alkhayl meel waxaad eegataan ku habboon dagaalka iyo farduhu inay ku meeraystaan oo lagula fardaha lagu dagaalami karo tacajaluu arrintaa waa lagu khilaafay imaamu axmed guray ciidankii waa degdegay fasaara waa dhaqaaqay wasiir cadale ninka la yidhahdo ayaa dhaqaaqay awal jeyshi ciidanka asagoo u horeeya watabicaha aljeysu bilajmac ciidankiina dhammaantiin ninkaasuu dabagalay wa imaamu axmedna fi aakhir aljeysh imaamu axmedna wuxuu ahaa ciidanka gadaashiisa ayuu socday wa macahu waxaa la socday 50 farisa min ashujcaani alabdaal 50 nin oo fardafuulla ah oo geesiyaashii ama halyeeyadii tilmaanaa ka mid ah ahlu najdati walquwa aladiina yudrabu bihi lmathal oo nimanka gargaarka iyo awoodda u saaxiibka ahaa oo dadka alladii yudrabu bihim almathal yudrabu bihim almathal waxaa la yidhahdaa waa dadka maamaada laga dhigto tusaala laga dhigta yani wax lagu daydo oo kale weeye yani niman tilmaaman bay ahaayeen buu ka wadaa ومن الرجالة الدرابة المعروفين بشجاعة نحو المعتين رجل لقطة سيفها وحكو قرعة ليقانو جيسنا معروف كأنا إلى لما بقول باك لسعودي مركب حوة كنت نينو فردولية يلا بقول اللغة ومعهم من كان لقطة وحي وطان من السيوف القادعة سيفها هذا وحشرة والدرق الهندية ينكاش عمده هندية القسمية ومركز حل غاز بعدين كاش عمده أو سيفها يورمع اللي يسكده هندية وقع سنة سوي سمين شرين وهم محاذون الإمام أحمد أيقو إمام أحمد ساوجو هرتي ساوجو قداما أو وجو عن ولم يكونوا يتقدمون ولا يتأخرون عنه في كل حرب لمن كان سنوحي أهايم إنت ولا بدني لمن عن إمامك كانوا هرمانين كان قدال عن دجال كالصعود وقد استعدوا للقتال لمن كان دجال بودي الجروبين فحينئذ ركبوا خيولهم وحرضوا الإمام هل كان مركب هوش مرسي إمام أحمد وزيد عضلنا العيدن كي أنتي سبنا لا دقاقة وبيجي عاشة صاري قال لي ريفود إنجلينيا إمام أحمد نو عيدن كي قداش الصعود كنت كافر دوريدا يلا وضع بضوا اللقطة هنا أي دم السعودان وعير فرضه هذه بيفولين وحرضهم الإمام أحمد على الجهاد والثبات لأعداء الله إمام أحمد وحاد يقول بوريي إن الجهاد كد دالان وأي كسب نادان إن لدق علمان عدو إلهي وقال في أثناء ذلك أرنت أمركم كهلين وصوقاتي أيدي كتشت في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا آخر كذا آية على يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا والرابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هل كأمركم مرة يقول نقضي شيخه ninkii cadalaha ciidanka la dhaqaaya maxaa ku dhacay cadale waxa ku dhici doono fiirso wa amma ma kana min wasiir cadale ninkii wasiir cadalaha ciidanka badamaantiisa axmed guri kala dhaqaaqay wajiyuush muslimiin iyo ciidanka muslimiinta alladina taqaddamu ma'ahu oo asaga horgalay hore ula dhaqaaqay innahum wasalu ila nahri wabigi bay gaareen alhaa'il baynahum iyaga iyo gaalada u dhaxeeyay wa ta'addul ma biyihina waa tallaabeen wa kana awwala man ta'addahu ninkii u horreeyay wabiga tallaabay wuxuu ahaa rajulun nin yusama lagu magacaabo sabura min qabaa'il jinsi jinsigaas oo Soomaali baa macanfar baa ma aqaan oo qabaa'ishu ka dhigisay qabaa'ishii jinsi la oran jiray nin kamid ah oo u dhashay qabiilka ka soo jeeda oo la yiraahdo sabura ayaa wabiga u horeeyay dabaal ku gudbay وهو ninkaas wuxuu ahaa min almujaahidiin almutawaadiciin ragga halgabayaasha ah ee ilaahay daraadii u tawaaducaya buu ahaa waxamala cala alkafara gaaladii ayuu weerar ku dilaaciyay keligii weeye waxamala almuslimuuna macahu muslimiintana isagoo iyagoo la socda ayay weerar ku dilaaciyeen xamlata rajulin waaxid sidii hal nin uu weerar u qaado ayay dagaalka mar qule sagax ku yidhahdeen weya hadalka macnihiisu واختلج الجيش بالجيش ciidanka ayuu dhex galay waa faraha la isla gaaray وصبرت الحبلة اللئام إمامك wuxuu leeyahay shay kitaabka qoray xabashadii muudalada ah li'aamku waa jamcu li'im waa qofka muudalka ah la yiraahdaa wuxuu yiri وصبرت الحبشة اللئام xabashadii muudalada ahayd way u adkaysan ala qitaal almu'miniin alkiram mu'miniintii sharafta badnaa saacatan muddo saacad ku dhow ayay u adkaysteen oo la dhaqaaji waayay ثم انهزمت waxa jabtay maymanatul kafara gaalada midigteedii baa lala kacay وثبتت waxaa sugnaatay ahlu maysaratihim laakiin dhinacoodii bidixda ahaa baa la dhaqaajin waayay wuxuu yiri albidriq ruwaybil oo ninkii hogaamiyaha ciidanka la soo dhaqaaday oo taladii Cusmaan iyo magaalada soo galay nimanku diiday iyo bidriq asir iyo bidriq faqrasuus iyo bidriq waashu Cusmaan waa nimankii meesha yimid nimankaas waa la dhaqaaji waayay oo dhanka bidixda joogay wastaqaamu macahum wa calaamahum nimankaas calaamadoodii bay taagteen
كأنها جبال الرواسي أيها الموجود بور اللقطوليي والريح كلي ويوي عليهم واحد دوشود أبي عدة مانعة من الخود والدروع المانعة waxay qabaan koofiyado seefaha ka celinaysa iyo diriciyo aan warmuhu karayn faxiina idin xamal al-amiir halka markay hawshu taaganto midigtii lala kacay bidixdiina nimanka hogaamiyeyaasha oo masaa'ibta ay taagtaagan yihiin la dhaqaajin waayey calaamadoodiina ay taagteen ayaa waxaa weerar ku dilaaciyey ninka la yidhaahdo al-amiir abubakar al-mulaqab bilqidiin ninka la oran jiray amiir abubakar oo lagu naanays jiray bilqidiin qidiin soo qaabna waa tuu sheekhu ahaa nixiisa leeyahay waa catay macnaheedu weeyaa luqaday tahay maaqan cala bidriqi aruun ninkaasuu weeraray bidriqyadii hogaamiyeyaashii xabashada nin kamid ah oo la oran jiray aruun ayuu fooda geliyey wadacanahu birumxi fi kadibna waran ayuu wuxuu ka geliyey afka warankaasoo akhraja sinaanu yalmacu min taxti uduni waran ayuu afka ka geliyey warankaasina asagoo ololaya ayuu dhegta hoosteeda ka soo baxay wasabata badriqun fi sarjihi ninkaasi waxaa muuqatay inuu faras saaraa koorihiisi ayuu ku sugnaaday kadibna waxaa dhacday waxamala badriqun min alkafara wuxuu sheegayaa sidii dagaalku ugu dhacay qoladii la dilay muslimiinta si loo laayay say weerarka u qaadeen laakiin weli dagaalka jabkiisi weli waa soo socdaa marka wuxuu leeyahay waxamala badriqun min alkafara nin hogaamiyeyaashii gaalada ka mid ah ayaa amiir abubakar waa ninkii ninkan dilay ayaa gadaal ka soo weeraray oo duleediyey wadacanahu fi yadihi lyumna wuxuuna seef kaga dhuftay gacantiisa midig fakasaraha waa jebiyey farabadaha law almuslimuun muslimiinta ayaa abubakar gacantii u xiray fanjabarad way kabantay ka alla yakun bihaa shay ayadoo waxba ku dhicin maraa lagu xiray mise waaba sideediiba hada wuxuu yidhi shuqu min fadli jihaad arrinta noocaasa oo ninka haddeer gacanta laga jebiyey haddaba ay caadi u shaqaynaysan wuxuu yidhi waa jihaadka fadligiisa arrintaasi labadaan markay kala gaadhay oo isna uu ninka afka waranka ka geliyey isagana gadaal gacanta inta la duleediyey gacanta laga jebiyey wuxuu yidhi waxamala farisu min almuslimiin nin ka mid ah nin faris ah ama fardafuul ah oo muslimiinta ka mid ah oo lagu magacaabo kusham abubakar la yidhahdo ayaa wuxuu weerar ku qaaday ama uu weeraray calaa bidriqin hogaamiye oo min albadaariqati hogaamiyeyaashii ka mid a gaalada darabo wuxuu ku garaacay bisayfi calaa caatiqihi seef ayuu garabka kaga dhuftay meesha caatiqa waxa la yidhaha halkaas deegta meel deegta ay soomaalidu tirahdo oo garabka u dhow falam yu'atir fiihi shay-an min katrati ma calayhi min alxadiidi walcidda kadibna wuxuu yidhi seefta uu ku dhuftay wax saabayna uma ay geysan maxaa yeelay xadiid iyo biro iyo waxa uu qabo daraaddeed wa asnaahu bidarbatin thaniya kadibna wuxuu ku celiyey garaac labaad falam tacmal fiihi shay waxba kama qaban wadarabahu darbatan thalitha mar labaad ayuu ku dhuftay falam tu'atir fiihi shay-an waxba waa ka keli weda biruu qabaa habaar qabu faxiina idin markaa iyadoo hawshu halkaa maraso oo ninkaa ku fogan yahay ayaa xamala bidriqu min alkafara yusama washu cuthmaan nin hogaamiyeyaashii gaalada ka mid oo la yidhaha washu cuthmaan wa kaana wuxuu ahaa murtad ayuu ahaa lacnatullahi calayhi shiikhaa qoraya wuxuu ahaa murtad lacnadii ilaahi ku dhacdee ayuu wuxuu gadaal kaga yimi soo weeraray ninkii kuusham ahaa oo ninka la dagaalamaya abubakar wadacanahu fi sadrihi xabadka ayuu waran ka geliyey akhraja sinaanu warankii ayaa baxay min la'amatihi xabadkiisa ayuu ka baxay xataa kharaja sinaanu min la'amatihi waxa weeye warankii ayaa baxay xabadkiisa ayuu kasoo baxay xataa kharaja min dahrihi ilaa oo dhabarkiisa ka baxay halkaa laabta ayuu kaga baxay laamad waxa weeye halkaas maxaa la gaadada la yidhahdo gaadadiisa ayuu waran kasoo galay kadibna dhabarkiisu ka baxay wadacanahu maratan ukhraa mar labaad buu ku celiyey kadalika sidoo kale laba waran buu isu dhaafiyey wa kana kuusha abubakar mushtaqilan bidriqi alawal yadribuhu kuushamka waranku ku dhacayaana wuxuu mashquul ku ahaa oo ku mashquulsan yahay in uu garaaco ninkii hore wasabata kuusham abubakar fi sarjihi kadibna ninka labadaa warna ay isaga daba dhacday faras buu saaraa koorihiisi ayuu ku dul xabsaday waqutila farisu min almuslimiin kadibna waxaa la dilay nin kale oo faras saasar oo muslimiinta ka mid ah yusama lagu magacaabo marfu oo min mawaali garaad garaad mansuur ninkii la oran jiray adoomadiisa ka mid ahaa waqutila aakharun mid kalena waa la dilo oo min almuslimiina ka mid ah muslimiinta ka mid ah oo la oran jiray nasru ibnu aadam oo isaguna ka mid ahaa sibyaantii ama addoontii mansuur waqutila thalith mid saddexaadna waa la dilay oo muslimiinta ka mid ah yusama waxaa la oran jiray sadiiq ayaa la oran jiray min asxaabi cabdinaasir raggiisa ayuu ka mid ahaa waqutila rajulun min almuslimiin nin kalena waa la dilay wa kaana yawmaidin ninka afraadoo la dilay wuxuu ahaa maalinka muqadiban ninka horkacaya cala rijli ragga lugta oo waranleyda ah ama seefaha ku dagaalamaya ninka hormoodka u abahaa yusama waxaa la oran jiray del sabr magacaasu lahaa del sabr waa magacyadeenaan garanayn kaana wuxuu ahaa yunaaziluhu badriqu min madaariqati alkafara ninkaasina wuxuu ahaa nin legdin kula jira ama la legdamaya bahashan la yidhahda banaanka laysku soo baxo labada seefood lagu dagaalamo ayaa munaazalada la yidhahda munaazala ayuu kula jiray gaalada ka mid ah wa kaana bidriqu farisan wa waraajid ninka uu legdanka kula jira uu la dagaalamayaana wuxuu ahaa nin faras fuusan isaguna waa lugeynayey wa amsaka bidriqu
وأمسك البدريق وأراد أن يقتلع من سرجه نكا لقطه وحو قبصدي نكي فرس كسارة وحو نربي إنه كورها كصوتوره فحمل فارس من الكفر سوى هوشاكم مسقوشا أيان نين قاله قدال كصور دقل صبر نك اللي هذا من خلفه قدال بكين ولم يعلم به من وسنوين فدعانه من خلفه على ظهره خرج سنان من صدره قتل شهيدا وعسل الله بالروح إلى النار علي نينكي سوى نينكا فرس فوصل لدى يعلميا أيان نين قدال كقيمة وسنوين كدبنا ورم بكسوك الكلي ورن كاسي وحو يلي حبت كيس أيو كدح بحي وحانا الذي لا أسوه شهيدا إلهينا جنة أيو وددتي بالروح والنعم القرار بأن الله سبحانه وتعالى يدعو برواقبا فلما قتلوا هؤلاء رجع صدر مركي سيفتح حقه قال ذا إلايين والأمير أبو بكر وكوشم قد أثبت بالجراح لوضع أننا أي داوع حن ودلك يا الأيين والنظر إلى أصحابهما لوضع أننا أي أصحاب طوليفيريين قد قتلوا إن رجل لسعود يعيد كتاجنا لله إن سرى يا الراجعين لوضع نين أو داوع هوا لابتين فلما نظروه مع مسلمين تمركي أركان لوضع نين أو داوع هوا صول لابتين وهما منهزمان أو أيونا سواء عرية انهزم المسلمون بالأجمع طمانت المسلمين تواجبين وعرين إلى نحو الإمام أحمد حق إمام أحمد وشري وعينك آخر كسائد أي اللي يسوق جر الله عرج وتعدوا النهر وبيجي بالجدين وقرق منهم جماعة في النهر ركب لما وبيجي كحفتي أو كل انتي بيه قاتل وأخذوا الكفرة خيلا كثيرة من المسلمين قال لي وحي قاتين فارتبطا أو مسلمين تإلى هنا ماشى قعدت كل الرجوع كعري فلما نظره الإمام أحمد مركو أرين تأثيري وهم منهزمون يبغى صوت شوي استقبله الإمام كي عاش صوت على كوريمي بالضرب قراع بكوريمي وهو يقول لهم يسوى نمنك كله أين تفرون حاجة وعرسان أتفرون من الجنة والمجنة تعرسان وما هو إلا أجل قد قتل وحيد كل عيا ومظل يمحن كور هذا ومالي أجل قريوي ونزل الإمام أحمد عن فرسه إمام أحمد فرس كسي وكدقي وجلس على العبد دولكم فريسي ولا شوي دولكم فريسي ونزل معه الفرسان رجي فردها فرشنا وكدقي فرده وجالت المسلمون مسلمين توا يسكدح ورجالتين وكثر عجوجهم قيلوا ذي يرق ولي بابطي وما جاء بعضهم في بعض قاركود قارك كراعي أي كدح بلامين حول الإمام أحمد أيضا إمام أحمد كوهر عيسى كانوا يسكوا شوي ولا أرنت ثلاثة واحد واتاي إذا كوات شوي أحمد قولي وعلي لا يهي قار واسي عريا قاوروي ولا غي فردي ولا قصي فلا كدع رق بدن ولا لايي لو داوع ولا جيليا إمامك وحي يري مركا عوش مركا halka mar soo xaaladu ay xumaatay ما نزل إمام أحمد من على الخيل إلا إذا كان في مكان ضيق ولم يصلح لمجال الخيل إمام أحمد بعدته waxa kamid ay buleeyay waligi farasiisa kaba u degin ilaa inuu meel ciriid ku jira mooyaane meeshaas oo aan fardaha dagaalkeeda ku habooreyn فحين إذن قال أمير حسين الجارتي وأنك تلقمينك أيها الله dagaaladani ninka ay u dhintaan weeye taladiisa amir xuseen aljaati loo malaynayo inuu canfar yahay ayaa wuxuu yidhi yaa imaam almuslimiin muslimiinta hogaamiyaheediyo idrab al'aana khaymataka teendadaada taaga buu yidhi raggan wax si kale laguma celin kara waa laylaynaya waa jabanaye teendada inoo taag wanuqaatilu qitaala alcarab kadibna waxaynu u dagaalamanaa sidii carabta ay u dagaalami jirtay yacni bihim wuxuu ula jeedaa yidhi asaxaabata ridwaanullahi calayhim sidii saxaabadu u dagaalami jirtay baynu u dagaalamanaaye teendada inoo taag faxiina idin xilligaa ayaa jalasa wadaraba khaymatahu imaamku ayuu fariistay teendadiisina waa taagtay falamaa nadara almuslimuuna muslimiintu markay eegeen wahum munhazimuuna ila alkhayma falamaa nadara almuslimuuna muslimiintu markay arkeen wahum munhazimuuna ila alkhayma waxay usoo jabeen dhankii teendada laga taagay wahiya madruubatun iyadoo taagan markay arkeen dhankeeda ayay usoo jabeen kadibna maxaa dhacay sabata allahu man sabatahu sabata man sabatahu allahu casa wajal kadibna waxaa sugnaaday qofkii alla sugay wawasala alkafaratu ila nahri gaaladiina webigii bay soo gaareen webigi waa soo dhaafiyeen muslimiinto dhan webigi ku dhintay mooyaane wixii webi ka sheegeen waa la qabsaday wixii soo dhaafeena wax badda ku dhintay webiga ku dhintay iyo xagga usoo gudbaan laakiin wixii soo gudbay teendadii baa la isku urursaday wawasala alkafaratu ila nahri gaaladii waxay soo gaareen webigii wa araaduu an yaxmulu almuslimiina min almaa waxayna isku dayeen muslimiinta inay biyaha ka ilaaliyaan oo ay yidhahdaan cabbi maysaan wa kaanuu yaxmiluuna alkafaratu cala almuslimiin gaaladu waxay ahaayeen niman kuwa muslimiinta marba soo weeraraya ويردونه المسلمون مسلمين مربى ووابين وعابين يوم إس أرسلنا يوم وانون شوية وكان لهذا النهر 3 طرق وحير وبيجاسنا وحول صدح من الأوضة لا جدول صدح طريق تعيدهم كل كربوا لها فحينئذ مركو هوش السالك مرسو قسم إمام أحمد الجيش 3 فرق إذن كيسيبوا الدب والنغري راعد الرب يرجع العلم بوقلي إذن كيسيبوا حلوقة يصدح قيبوت فرقة فيها إمام أحمد قراء وحير إمام أحمد دا كل حشرة وهجامية وجلس على طريق الوسطى طريقة دحية وبرتمها أي أسلوب دقيقة في القلب وعينك ودنيك فرقة قولك لنا أما كوح كلا
أمر عليها متان الصومالي سيد قبيلتي وحو مدحو قد دقي نينكي اللي أورنجري متان الصومالي ونينكي سلطانكي قريوي أما عاقلكي قري سيد قبيلته قبيلكي سأوبس لها وأمره وحونا فرع الإمام إمامك وحو فرنينكا أن يمسك الطريقة العليا طريقة كوري إنو قاطو إمامكنا كدحو قاطو ومن المهمة تدينك ميريكتا والفرقة الثالثة قولوا الصدحاتنا وحي استعمل عليها وزير عدله وزير عدله وانك الله أحمد قري نيكي سوكري ويا أبي سو أدونو أهان شل مركي دون وحري مركي دون أحمد قري أدون ترقي سوكري وطن سومري قولوا الصدحاتنا نيكا وزير عدله وانك عبد عيدك تشبيه أمر كده كده شبكة ما رسوتشي وأمره أن يمسك الطريقة السفلى طريقة خاصة إن وقعنت كل وقفت أيهم فري ومن الميسرة تجرح لحقا صار كل منهم في فرقة صدح لانين نولي بكوحدي سايو الله دقاقي أو ماشي لغو آديي مطان نوحا لغو آديي ملكتا إمام أحمد قرني بالحدا وزير عدالي يعينك سنة وحا لغو آديي بالحدا صدح نوع وين قولوا اللي بوحي هولا تقول أنت مركشة كينيا صدح ذي قولوا يوحى الله روحي دقال ماشي كدعي ودنبي ولي لكن اللي اسمه قاهرين دقالكم ولي والوجه بنتو الله مسلمين فأما ما كان من فرقة متان رقي ملكتا ويه متان الصومالي ونكي جري عاقل كودي قولوا يسميها فإنهم قاتلوا على طريق اليمين ودوي ملك تايل كنت قالمين قتالا شديدا دقال أعضوا أدق بيقلين وكانوا وحي أهايين تارة يحملون على الكفرة مرمرك قاركود وحي أهايين قال هذا كووي الرا وتارة يحملون الكفرة على المسلمين مرنا قال هذا سوي الرسا ويردونهم ينوى السعلية فكان هذا دابهم من الضحى إلى العصر سيها صادق عن كوضا يعادوا أي أهيد إلى صلاة الصبح إلى يبرقدي وان لا هي إلى عصركي كلمة الدأبي وتيجي تفسير سورة آل عمران دابهم كداب آل فرعون دقن كودا يعلوي تاسي هوسو أهيد إلى الضحى إلى عصركي فحينئذ أرسل مركا كدا يا أرسل متان ديالك وقوات كذا متان فأرسل متان فارسا من فرس فوسنا يو صدري واسمه أبو بكر الأورنجري فعبر النهر وبيجي بصوت الله واحد مدة فرقوين كقاركون إنه وبيجي كشيئين أو وبيجي دنكس الشقار أي شوين قارن أي كسو كينو هلك قالوا اللي قد قالوا كذبوا فعبر النهر من كاس أسوق فرس سوى أي وبيجي صوت الله فوصل إلى عند الإمام أحمد الإمام أحمد بسوقاري يطلب المعونة أسوق قرقار كتل بيورة تأكل أن وضعنا لما أجهدهم القتال دقالكم مركو آد أودي بي أي وحي وحن وضعنا تأكلوا يعيدا وأنا عرضوا أن نقول هذا أنت أنو دقال لك عصر على مريم فأرسل اللهم الإمام أحمد إمام أحمد وحن منك أودي نحو 50 سارسا كنت نين أو فردولية من أهل الشجاعة والقوة رجي جيسنون يعوض هي الكواعة وأعيان الفرساني رجع تلمامن فردول إلى كمدا كنت كنين والله دريو روين وقاركة المامشيخ منهم وحا كمدا أويل أمير أحمد شو نينك اللي هذا وحا كمدا وزير نور إبراهيم وحا كمدا عبد الناصر دويرا halkan uu qabanaya wuxuu leeyahay عبد الناصر دوي بدار الإمام ورقي قريقة إمام أحمد قريقة كتسناوي سخلدن بعد العدة خلدي بولي هوس مكقبانيا وحكم إذا رقع فرشحم سلطان وحكم إذا أورع النور ورقع الله يدري المتان اللي وحوتيو وحكم إذا فرشحم دين من آدم هو أتباعهم رقوا ذي لسعودي وصاروا ما يدقاقين من كاس إلى عند متان أكتيس أي آذن واقتتلوا هناك قتال الموت سيد الجيري قف دون يقود دقالما أي هالك أوقات دقالمين وقبلوا بلاء حسنا بلايات waxay muujiyeen balaayo aad u daran oo aad u fiican yani dagaal arag galan way hatta farqa baynahum dalam ila iyo mugdu kala dhaxgalay wa kana qitaaluhum ashad qital dagaalkooduna wuxuu ahaa dagaal mid ugu daran qoladaas waa qoladii markaa qoladii Ahmed Kawar qoladii Imam Ahmed wa amma ma kana min Imam Ahmed qoladii Imam Ahmed waxa ka ahaaday iyo asxaabi ragiisi fa innahum qatalu ad-dariq al-awsat wadadii dhaxayay ku dagaalameen acdama ma yakun intii dagaal uu ahaan karo inta ugu weyn wa qatalu qitalan shadiidan dagaal adag bay galeen فحينئذ لله حلقا وحا لله در رجل من العرب يسمى حمزة الجوفي لله در رجل لله در ذو حواي وكلمة عربت استعماشه وماشا يكون ولا نكا عبر بعد شيء ما كان نقف أمانه ولا نكا هي بعد شيء لله در وحلي هذا إلهي بقى إسكال عانيه وكسر برباري نكا مركل الرمين لعمانه فكل عليه مالين توحى تلمان مدن نين كم لها عربتها واللي هو رجل حمزة الجوفي فإنه نكاس قاتل قتال الموت سيدي نين جيري دون يأيو دقالمي قدام إمام المسلمين إمام أحمد بن وقت أيو دقالمي وكان من الرجالة والطبع رجل لقط أيو كم الأعوان سوناوي وأبلى بلاء حسنا باس أيو موتشي وارتقى الحرب بنفسه دقالك اللي فيه سأيو كوغلي كان الله يضرب أحد من الكفرة قال هذا كم إذا شيف كبد فنين إلا جندله قتيلا إلا دول كودي حتى قتل منهم ناسا كثيرا إلى قال حقبا أكلاي وسد النهر وبيق برتميس وكلاي
وانقلب ماء النهر دما أحمر وبيجي بيه سنا أي بيجوز نسب بدلين وثبت المشركون من فعاله قالوا نينكا دغالكيسي halkan koodii ma ay dhaqaaqana waa u taagnaadeen waa la jabin waayay fahiina ثبت المسلمون مسلمون waa adkaysteen lama nadaru yunjadu al-kafara markii arkeen ninkaasi gaaladii sida uu xasuuqayo muslimiintuna waa dhaqaaq waayay وكان حمزة wuxuu ahaa لا يولي دبره ولي ما وسعرن ل1000 فارس كل nin oo fardafushan oo mid al-mushrikiina kamida wali ninka ka carab dabada u jeediye ma ahayn biyo laba xiriyada waa caraba fahiina idin daca lahu al-imam imaamku ayaa wuxuu u yeeray imaam Ahmed ayaa wuxuu u yeeray wal muslimuuna bisabat waxay dadkii ugu dhawaaqeen inay isdagaajiro dagaalka ma adkaysto walam yasal kama aanay suulay yuqaatilu baaqiya yawmihi ila maalintii oo dhan inay dagaalamayaan walam yazal yuqaatilu baaqiya yawmihi wal muslimuuna ma'a imaam Ahmed iyo ragii la socdo muslimiinta ahaaba ila maalintii intikaari waa dagaalamayeen hatta farqa baynahum dalam qoladaana sidii qoladii masaan oo kale habeenkii waa u kala dhacay mugdi waa kala dhaxgalay ninkii cadala ahaa ka war wama amir alladhi ala al-maysara ninkii bidixda higay oo wasiir cadala weeye وكان معه أهل القسي من الصومال وحانين كان لجري ويري تجي فلارها وتي الصومال لها ومن قبيلة مريحان قبيلة مريحان كمذا أهل القوسي فلارها رجلي وي أهل كواها وكانوا وحي أهيان يرمون تارة مربي فلارها كتوريين يردونهم الكفرة قالوا وابليين وتارة مركلنا يردون المسلمون الكفار مركلنا المسلمين تايا قالوا عليني مرنا قالوا بركي فلارها الوتر شيء اللي شغل لحبة اللي يقولوا واو كذا دعوي وكان من الكفار قالنا waxaa ku jiray oo nimankan marixaan ku aadanaa oo nafta u keenay qabiilatu Maya qabiilo la yiraahdo qabiilatu Maya hum ayaguna ahlu sanaabib al-masmuma waxay wateen falaaraha sumaysan iyo sheekh loo sameeyo kitaabkeen ugu tagi doona sheekh aanu fasiri doona isii su'aalo sameeyay maxarad وكانوا معهم wuxuu yiri nimankaana waxa la jiray ahlu qisiyi kuwa falaaraha wata sanaabibta iyo qisiga iyo sihaamka iyo waxa way isu dhow yihiin waa baarsha oo la gamo oo حبض الله تقول درمسان فلارت اللي ده قالوا سنا وحيد halkaas ay hawshoodu martay وقد كان قال امام المسلمون يومئذ اذا رموكم بسام امام احمد رجي qoladan marixaanka ah oo imaam wasiir cadala wato wuxuu ku yiri haday falaarin ku soo tuuraan اذا رموكم بسام فخذوه ولا تتركوه haday falaarin ku soo tuuraan falaarta qaata ha ka taginina فاذا تركتموه hadaad ka tagtaan fil ardi akhaduhu hadaad dhulka kaga tagtaan biribay qaadanayaan inagu soo tuurayaan mid kale ورموكم به مرة أخرى مركا ينقص ريد دونا وأدفعوها وأتوني به فلارها إذا كنتوا توران لو حير مثل الصوان قف كلعين وريا إيه كان فكان إذا رموهم بسهم أخذوه هاي مركا فلار كنتوا توران با وقاعدين فلما كان المغرب ما كان غرقة أو كان عظيم فلما كان المغرب بعد انقضاء الحرب ورث اللي قال المغرب كي رجال كنا وجب كل هاي جاء كل أمير بعسكره نولي بوح لي من أمير كيسي أمير ولا بوح لي من عير كيسي ومع كل واحد منهم حزمة شنابيب من الذين جمع نولي بوح وتا محل كذا حرمو أو فلارة أو سوري فخلوها بين يد الإمام